koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan dalka madaniyo huwaaga tariniya hawsha malaweeyeedhaylalamay hadaadideolodila meerayso waxaan leeyahay maanta ila meeraysadii muuse way soo dhammaanaysa ila meeraysadii way soo dhammaanaysa la isla meeraysan maayo aan ku bilaabo salaanta islaamka kuguna salaamo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawade si aanad noola meeraysan subscribe sidoo kale si aanan anaguna kula meeraysan like-ta ha nagala masuugin ku soo dhawow YouTube channelkeenani si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kalamaan fadlan subscribe saar channelkan waxaan ku weydiiyey kalamaan ma dhegaysatid war naga tag oo maxaa dhacay mar dambena su'aal ima weydiin kartid sabab kalamaan ma dhegaysatay markaad leedahay maxay sheegtay ma tiraahi wadani maxay kula tahay halka Soomaaliya afar musafadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay low waranagu horanu goonee aqoonsigan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dawlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaa adna maxay kula tahay boowe federaal ina adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kalamaane oo duceeyay allay leedahay ilaahay waxa la yiri haba kala daraadee dadka waa la dili jiray dhigna waa ka dii jiray tan joogtaasay ugu daran waa la deejiri kula dadka may deey jirna wal dili jiray laakiin dukun daakum ta darangniyow wareer dilku noloshu la socdaay waxa la yiri dilku wuxuu banaan yahay diintiya dalkaagaba marka daafacayse dooxaha walaalkii dumadiisa gooyo waa wax adiga ku daran waranna waxaan ku darsan lahaa oo horay loo yiri walaalka dilo dooxninna darajo kuma war dil walaal hadii darajo la ka helaw dilkii haabiila gaabil darajo ka helafadi aryaadaha xabad hadaalina waa taan horay u dhahnay dadkii in leeskaasi dilo dambi la geestay waa daya dadkii in leeskaasi dilo dambi la geestay waa daya war nin wax dilay hadii aan la dilin oo la iska sii daayo wuxuu doono waa inuu dilaasaa la dili waayo abaan tabtaaba Allah u naxariisto hore u yiri war dulucda la gartaaye nin wax dilay inta aan la dilayn macnaheedu dilku ha socdo weeye war in kasta waayaanu dilal fool xun ay dhacayeen maanta mid kale fool xuma dhacay arnaga tag dilmiya dilkaaga qurxoon mase geeriya geeri ku dhaanta si in kaarna loo laayuu ka wadaa war wadana waalateen warka naga dhaxine maanta gaari caasi oo dad shacab way saaran yihiin ayaa miina la kacday 22 qofood oo shacab ayaa gaariga saarnayd barna waa dhintay barna waa dhaawac fool xun inta badan dadka waxa la sheegay inay hal qoys wada ahaayeen u socdeen dadkaas waxa la sheegay inay hal qoys wada ahaayeen u socdeen dadkaas Allah u naxariistay baabuurkaas lagu baaba'ay waxa la yiri xamarow ka baxay wala weynowna u socday xaawa cabdiya masiibadu ku waafaqday la yiri war waxa la yiri muslimaan waxba u geysan oo gacal islaameeda kii qarax ku gaagaabiye shacab gumaadaya geerida xageebuu ka geliso ma go'i doono god madow miyaan lagu ridayn in la gelinaynin ilaahay wuxuu galabsadana soo ka gudi maayo gaboosow gabaygaas atiriso waa sax waana mid xaqiiqda ku qotoma laakiin samir caalwaayaan ka dareema waxa la yiri naftiisa ruux daldalayo dab ya qarax ku xirayo haadkiya dugaagii hilibkiisa u daadshay inuu taada daaya waa dameere geesale war dilka foosha xuma ayaantan waa batay maanta islaana odageeda kow ka siisay inta toorey soo qaadatay hadda gudoomiye
kooxeed ka tirsan degmada dayniile oo la dhihi jiray cabdiqaadir fooldibi afadiisa ayuu sababsaday aryaadhaha marxuumkaas horta allahow naxariista malaka mawdkuse waa midaba badan yoo mugbanuucow iska soo dhigaahe marwadu ma masayrtay mase waa loo soo tashkiiliya inay ninkeera midida ku muddo warwar ma haysaana dhallinyaradii takhaatiirta ahayd oo lagu laayay gololey waxaan hubaa kuwaas in si inkaaran loo laay yaa mudusuudi oo xanaaqsan waa gebyaa layidhi asigoo warramaaya wuxuu yidhi dilkii yariisow xataa calaamatu su'aal ayaa saaran gabadhina la aadishaa la leeyahay ayuu yidhi markii gabadhu xaggay ka timid xaggay ka soo gashay yaa soo fadhiisiye maha yaa keenoo wax ka ogaa yaa soo diray yaa u soo dhiiba ayadaha imaamo kartee yaa waxa ku soo raray sidee lagu ogaaday yaa ku caddeeyey intaasba lagama jawaabin ayuu yidhi war maxamed cabdulaahi xaaji wuxuu soo qoray xaaji muuse wuxuu tiriyey gabaygii guure inanta yaa casuumay yaa idinta dhaafiyey iyo warka muuse isku mid waay yaa infiitada siiya ka tagtay adiga xataa warwarkaa iga dhex gelinina cabdulaahi sheekh xasan oo ka hadlay dadkaa gololey lagu laayay wuxuu yidhi wasaaradda warfaafintu waxay tidhi dadkaas shabaab baa laayey laakiin waa la baarayaa waa go'aan baaritaanka ka horreeya taliyaha xoogga dalka jenaraal odowaay wuxuu yidhi falkaas ciidamada dawladdu shaqo kuma laha laakiin waa la baarayaa waa go'aan kaloo baaritaankii ka horreeya hirshabeelle waxay tidhi laakiin waa la baarayaa waa go'aan kaloo baaritaanka ka horreeya marka dawladda hadda dhahaysa shabaab baa laayey wixii ay baarto waxa ka soo bixi doonaa maxay noqon karaan wareerdhe wax lama og yahay la baaraaye wax la og yahay lama baaro marba hadday sheegeen maxay ka baarayaan war waxay soomaalidu ku mahmahdaa sagaara diga muuqatay aas-aasta war dad waalnaa tihiine baarastii taliya sheegin ayaa dhiminaha ka hor dhicina war taliya anaa amray beriyaan ka nahay buu yidhi oo taliya ima khusaysa waxba kama khuseeyaan miya war runta haddii la sheegayo dadka falka geystay waa la yaqaane taliya shub ha lagu wareejiyo war dadkaanoo kale taliya shub looma geeya taliya shuuta loo geeya aryaadhaha dhallinyarada mugga laga wadahaya gololey ragga wadahayay dadku waa dayaayeen waana yiqiineen kadibna odayaalaa ka daba tegey waana soo arkeen waana yiqiineen mugga howsha sidaas aheed dadkaas dawladdoodii warkan ay u sheegayso say ugu qancayaanan la yaabanahay war islaanto hadda ka hor maylaraytu wali la tag dheegasaanahe hibil muggow soo galaaye waa dayaaye shaataad inuu ugu jirayna waa dayaaye muggow alaabta gurubsahayna waa dayaaye kabihii aan ku aqiini markuu gashahayna waa dayaaye iridka markuu ka bahay yaaha hele wuxuu ahaay yeerti tii ama leeyahahe war haddii mid dadkuba dayayaan la dafiray saddexdii saniya barkii la soo dhaafay wixii qarax iyo dil ka dhacay waddanka dhammaantood in dib loo baaraa bay u baahan yihiin aryaadhaha dawladda waa heestay waxayna tidhi dawladnimo aqoonso sidii shacab xiishoodo falalkii la dedi jiray ha soo dhigina dibadde nabe kale maanay waa laydin digey minaad wax maqlaysaan war dibadbaxyadii maraykanka ka socday maalintii shanaaday galeen guddoomiyaha minneabolisna wuxuu yidhi markaan arkay bannaanbaxyadan waxaan ku soo xasuustay muqdisho iyo baqaqdaad wixii ka dhici jiray warwar ma haysaane donald trump wuxuu yidhi bannaanbaxna lagu fuqsanaayo iyo dukaamo la billiqaysanaayo weligay ma arkin oo yidhi waxaan bannaanbaxaya meesaaneeda soomaaliya war donald trump markii bannaanbaxa aqalka cad lagu hareereeyey hadday ii soo galaan eeyaan ku fasixi lahaa buu yidhi war soomaalida bannaanbaxa maraykanka ka qayb gelaysaaho af soomaaliyay ku boojeeyeen maraykankii caddaanku waa musiibo oo af soomaaliya ayay qaybta kore ee boorka ku qoreen waxaynu ugu turjumeen oy hoos ku qoreen stop killing us oo micnaheedu yahay dadka maraykanka yaan la dilin soomaalidu wallaahi waa xarfaan adduunka meel kastay tagaan saasay u boojeehayaan war soomaalida haddii harfaan ayin bililigidii heka ka dhaceen inuu intisheenaga lisku fadeehe war dadkii karoonaha laga xareeyey oo la yidhi guryihiinna ha ka soo bixinina hadday bannaanbax u soo bambaxeen aawa karoonihii xaggu aad karoonihii markuu arkay dhagax tuur ka socda isagaaba naftiisa u baqoo carar buu fakaday war booliska maraykanka oo dadka ay ka bannaanbaxayaan ayagoo taagtaagana indhaha faraha laga gelinaya arkay marka madaxweyne farmaajo waa nin maraykane mubax kasii u diro war baasaboorkii mar horuu iska celiye afkaaga suubso aryaadhaha turaamka la sheegaya dhibaatada bannaanbaxa uu ku haysata ameerika ma uu madaxweyne farmaajo ciidanka tuugo bax kasii ha loo xawiile war bax kasii dad la raba in la laayaa loo diraa dadkaasna dil looma rabo war waxba ha daalinina dawladnimada maraykanka lama gaari karee twitterkii madaxweyne trump wax ku qori jiray ayuu wuxuu ku soo qoray waxa minneabolis ka socda lama aqbali karo shirkaddii twitterkuna qoraalkiisiina way ka saartay
wax kale inuu ku soo qorona waa diiday waxayna yidhaahdeen hadalka madaxweynuhu dhibaatadu sii kordhinaya loomana baahna marka waxaa la yidhi duqu shalay jaynac ka badan twitterka wuu ku qori waayey dowladnimada maraykankuna waa dowladnimo shirkadaha iyo shakhsiyaadkuba ilaashanayaan oo shirkadda twitterku ayadaaba xorriyatulqawlka ka soo horjeeda miya war xorriyatulqawlka ma soo horjeedee meesha warbaahinta soomaalidu warka xanafta le ka raadiyaan ayadu warka xanafta le ka hor tagtaa war ma haysaane dowladda soomaaliya waxay sheegtay jannaale shabaab jooga inay shaarbaha uga istaagtay aryaa been badanida ma shabaabaa shaarib deestaad berigana keentay war dulaadkii qoryooley al-shabaab nin odayay shala ku togteen shabaabaa la laayaa hadda laga hadlayey shabaabaa wax dilay miya adna keentay baraader labada dhinac waa la kala shaqaysanayaa warna miya war isoo ogdiin askayara caalamku walaagi masaajida oo hirinaayey wal furi geekoonka damboytina maybaa la furay masjidul aqsa oo qudusta barakaysan ka yaala war masjidyada xarameynka mar horaa la furay war isbahaysiga islaamka maba la xirin hawada soomaaliya goor horaa la xiray war dadkii shala la yidhi dowladda soomaaliya sacuudiga ka soo celiday xantu waxay keentay faanow fariga jebi aan maqli jira fari iyo suulna iyo reebaad cabdullow ka tagtay ee igu soo waraa khatara ummad yahay karoonihii kacdoon baa ka adkaadoo kurbadiisii nidaysi shalay waxaan daawaday gaalkacayoo madaxweyne qoorqoor garoon weyn lagu soo dhoweey dad tiro badani soo dhoweeyeen madaxda keliyuhuna afku u xirraa ee shacabku caadi ahaaye marka ma halisay daaqayaan dadku mase karooniyaa laga adkaaday arhalisow dadku daaqee karoona waa sii fidayaa waxa madaxdu ka baqaysa oo gafuurka ay u xirteen dadweynuhu waa u degan yihiin warla shifishifidiisa aamane dadweynaga may aameen oo afka ku yidhidaayaan madayow karoona mashruuc ka weyne halistaan dadka ha u loogin warwar ma haysiina musharaxiinta ayaa soo bilowday madaxweyne maridhahaye miya war waxaan maqli jiray qoysatay ayaa kuu xiidhin markaa doorashaduba kow ma joogtee xaggabuu shiikhus ku soo qaawinaya war ninku cayaartooy hor ayuu ahaa waa si alamiintaynayaa waxba yaan lagu daalin dadkaani musharax dambe ballanqaad iyo waxaasaya ka dhegaysan maayaan wax kale musharaxiinta la yimaadeen war waxaa la yidhi kalka doorashadaa kooxi iman kooror sidataa kalsoonina shacbiga kama rabaan kamana haystaan kursigiiyo xilkay doonayaan inay kiraystaan wax kastoo sheego musharaxii yidhaa waxaasaan qabanayaa laga yeeli maaye kii run sheegayaa waxaan awoodaan qabanaa ha dhaho war madiidii hor walaajo maaweelihaayana lankuu maxamed aamin olhaaye leere wareedhaa madaxda unbaad eedaynaysaane horta ma maqasheen gacmo wada jir bay wax ku gooyaan markaa ummaddu markay wanaagsan tahay ayay madax wanaagsan heshaa doorkaan allahayow been waa ku daalnay madaxweyne daacada oon khayaano dadaynin darajadeenna u dhiib ducaysanoon la habaarin baad ka ilowday aryaadhaha daalina idoordha anaa daacadahoo dariiqyada idin furaaye iguwada mar kale heedishow ahadool heynabe adeer aabba waa xanuunsan yahay allaha caafiyo dhakhtar baan rabaa inaan u wada aabbe allaha u naxariisto adeer aabba ma dhimana wuu jiran yahay baan ku idhi allaha u naxariistaan anna ku yidhi maxaa ka wadaa dhakhtar sow kii aragtidiisu ay lacagta badan ahayd maaha haa ee haddana faylka dheer loo gelayey sow maaha nacam ee adigoo daalay markaad la kulanto isagoon ku waraysanin oo aan xogtaadaba ogaanin ilayn boqolaal kale ayuu qaabili lahaaye waana dhakhtarkii cudurrada guud oon caalamka kale ka jirine 10 dhiig 10 dheecaan kumbuyuutar raajo iskaan iyo wax kaloo la sheegi karin kuu dirayey sow maaha allayleh markuu intaad haysatayba kaa wada xanyuubiyo haddana dawo farmashigiisa taalla lana tayaatan suuqa taalla kana qaalisan kuu sii qorayey maaha waa asiibtay haddaba walaalkay allah u naxariisto adeer waa yaabanahaye dhakhaatiirtu ma sidaas bay u wada naxariis daran yihiin waa kuweenna oo keliya ma xitaa kuwa ajinibta noo yimid iyagaa keenayo waa isku mid ummaddayna soomaaliyeed inti dhimata allaha u naxariisto ununkana ka kadib ilaahayna ma fidneeyo ay ku mahmaadaa feeri ganjeelo foorgad muran fariis qabqabsi faydhowrka maskaxda war maanta golaha abwaanadu furitaanka golaha aqalka sare ka hadleen intaasaan ku soo koobaya yaana sifadinaan ma dheheen inta jidadku xihan yihiin ummadduna jarriban tahay juuhuna dhacaya
marayaan haddaan dawladdu ka jawaabin gabaygan wuu si soconaya meel xunun buuna aadaya warkaan aniga cabdulla xalay tirina baa ka weyn jidadkaad la xiri maayo tiri waagii lagu doortay inaan saaka mari weynay baa noogu yaab badane intaasaan ku soo koobaynaa ayaanan sii badin daawade si aanad noola meeraysan subscribe sidoo kale si aanan annaguna kula meeraysan like-ta ha nagala masuugin ku soo dhawow YouTube channelkeena